الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابديال كسو دبادة قضبادة ورarka ugu doorkaroon janalkeena Daily TV waxaana ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaare Khayre oo sheegay dabeesha isbedelka geeska Afrika oo Soomaaliya ganacsi u furtay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo shaqadooda u fasaxay guddiga maaliyadda ee horay musuqmaasuq ugu eedeeyeen xukuumadda Soomaaliya dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobay dowladda oo faahfaahisay kulankii Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta saameyn ka dhalatay xayiraadda la saaray Kismaayo madaxweyne Farmaajo oo la kulmay madaxweynaha Bangiga Adduunka 5 ruux oo lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan madaxweynaha maamulka Puntland oo sheegay in awoodda dowladda aysan ahayn dukaan uu qof leeyahay iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ku geediyay inay kordhin doonaan isla xisaabtanka daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu doorkaroona janalka Daily TV inta aan u gudagelin qodobadaasi oo dhameystiran waxaan marka hore idin xasuusinaynaa isla markaana aan idinka dalbanaynaa in aad janalkeena ku soo birtaan oo subscribe saartaan sidoo kale gambaleelka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatana ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka sii faahfaahsan Khayre ayaa sheegay dabeesha isbedelka geeska Afrika in Soomaaliya ganacsi u furtay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maqaal uu qoray wargeyska Daily Nation ee Kenya laga leeyahay waxa uu uga hadlay arrimo quseeya xaaladda ammaanka ee Soomaaliya horumarka dowladda sameysay iyo isbedelka ka hirgelisay geeska Afrika maqaalka waxa cinwaan u ah dabeesha isbedelka ee geeska Afrika ayaa Soomaaliya ganacsi u furtay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in cafiskii dhawaan dowladdiisu sameysay uu horseeday in ay isu soo dhiibaan hogaamiyayaasha kooxaha Al-Shabaab kuwaas oo ka qayb qaadanaya dhismaha qaranka ayuu yiri maalmo ka hor Eritrea iyo Djibouti ayaa ku heshiiyay hagaajinta xiriirkooda taasi oo cutub cusub u furaysa xiriirkooda waxa ay la socotay guul kale oo ah kulankii magaalada Asmara ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea iyagoo doonaya in nabadda ay xoojiyaan kulanku waxa uu muujinayay in xalka Soomaaliya uu nabad iyo silooni u horseedayo gobolka hogaamiyayaashu waxa ay ku heshiiyeen in laga tilaabsado khilaafkii muddada soo jiitamayay tan iyo markii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo anigu aan qabanay xafiiska dowladda waxaan sameynay horumar weyn oo dalka gudihiisa iyo dibaddaba ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda Axmed Ciise Cawad ayaa garwadeen ka ah wadahadallada lagu dhameynayo muranka xuduudda ee u dhaxeeya Eritrea iyo Djibouti ayuu qoray Ra'iisul Wasaare Khayre wadaxaajoodka nabadda wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyo dhigiisa Eritrea Cusmaan Saalax ayaa u mahadceliyay dowladda Soomaaliya 10 sano labada wadan waxa ay ku muransanaayeen gobolka Dumeria isku dayo dhowr ah oo la doonayay in cadaawadooda lagu dhameeyo ayaa qasaartay 2010kii dowladda Qatar ayaa sameysay dadaalo bogaadin mudan si nabadda loo adkeeyo isbedeladii dhawaan dhacay waxa ay qayb ka yihiin tilaabooyin diblomaasiyadeed oo Soomaaliya ay qaaday ayuu Xasan Cali Khayre ku sheegay maqaalka uu ku qoray Daily Nation 2 bilood ka hor madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la xiriiray Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxayna adkeeyeen iskaashiga siyaasadeed sidoo kale waxa ay dhidibada u adkeeyeen xiriirka labada dal wadahadalladii Asmara waxa ay dhigeen aasaas cusub oo diblomaasiyadeed Soomaaliya waxa ay sii kordhinaysaa ama kor u qaadaysaa doorkeedii xiriirka waxaana dadaal muhiim ah gelinaynaa in aan door muhiim ah ka ciyaarno nabadda iyo ammaanka dunidan ayuu sidoo kale qoray Ra'iisul Wasaare Khayre ammaanka Soomaaliya waxa ay qaban doontaa guddoonka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee Carabta taasi oo noo ogolaanayso in aan kulanka golaha ku martigelino Muqdisho 2019 si aan adduunka ugu ogeysiino in aan ganacsi diyaar u nahay dowladeenu waxa ay doonaysaa in ay la qabsato dabeesha isbedelka ee geeska Afrika si ay u horumariso ammaanka caawinaadda uga geysanayso in xal loo helo mashaakilaadka Afrika intii aan Asmara joognay waxaan muujinay jihada aan u jeedinayno diblomaasiyadeena
inagoo ah waddan nabdoon oo gobol xasiloon ku yaala argagixisada. Dowladdeenu waxa ay ku dhawaaqday cafiskaasi oo loo arkay in hogaamiyaasha argagixisada ay nagu soo biiraan si aan u dhisno qaranka. Qurbo joogta ayaa maalgelin muhiim ah samaysay. Dowlad shaqaynaysa ayaan leenahay, waxaana mushaarka siinaa shaqaalaha rayidka ah iyo ciidankeena ammaanka si aan ugu dhiirigelino inay aad u shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale soo celinay xiriirkii wanaagsanaa ee dunida aan la lahayn. IMF-ta ayaa soo dhaweysay isbedelada kobcinta dhaqaalaha. Rubicii hore ee 2018 dowladdu waxa ay soo ururisay dakhli dhan 42.5 milyan oo ah tii ugu badneed, waxaana ku joognaa wadadii deentana looga cafin lahaa. Eray ilaaleedka dowladda waa isla xisaabtan iyo dagaal ka dhan ah musuqa. Soomaaliya waxa ay joogtaa meel ay kheyraadkeeda uga faa'iideysanayso dadkeeda. Sidaa ayuu u qornaa maqaalka ra'iisul wasaare Kheyre ku daawacay Daily Nation ee ku saabsanaa xaaladda Soomaaliya iyo isbedelada Geeska Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku guudiyay in ay kordhin doonaan isla xisaabtanka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyay fadhi gaar ah oo ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya, ayaa soo bandhigay dadaalada dowladda ee kobcinta dhaqaalaha, dib u habeynta laamaha ammaanka, guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, waxa loogu yeero argagixisada, dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta doorashooyinka. Madaxweynaha ayaa ka warbixiyay tallaabooyinka ay qaaday dowladda tan iyo markii uu xilka la wareegay, kuwaas oo lagu asteynayay maamul wanaagga iyo yareynta musuqmaasuqa oo caqabad ku ah dib u kabashada dalkeena, ayuu yiri. Waxaa si buuxda nooga go'an in aan sare u qaadno daahfurnaanta, isla xisaabtanka heer shaqsiyadeed iyo mid hay'adeed, iyo in aan si toos ah ula falgalno shacabka si ay kaalintooda uga qaataan hannaanka dib u habeynta maamulka iyo maaliyadda dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgalay dhamaystirka hannaanka dimuqraadiyadeed iyo tan doorasho ee dalka, iyada oo ay wadajir uga wada shaqeynayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo hay-adaha dowladda oo bahwadaagta la ah sidii looga midho dhalin lahaa qorshaha siyaasadda loo dhan yahay. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxa ay dowladda federaalk Soomaaliya iyo bahwadaagteeda u soo gudbiyeen xog hordhac ah oo ku saabsan howlaha diiwaangelinta codbixiyayaasha, waxaana ku rajo weynahay in ay noo suurtagasho qabsoomidda doorasho taariikhi ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa si faahfaahsan uga hadlay tayeynta diiwaangelinta iyo guulaha ciidamada qalabka sida ay ka gaareen Al-shabaab, iyaga oo xoreeyay deegaano muhiim ah, waqtigana ay sii wadaan howlgallada ballaaran ee xoreynta dalka, ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa habeen dambe khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedinaya shirka loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa sheegay awoodda dowladda inaysan ahayn dukaan uu qof leeyahay. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa sheegay in xayiraadda dowladda Soomaaliya ay saartay Jubbaland ay tahay sharci darro, isla markaana baalmarsan dastuurka dalka iyo awoodda uu siinayo maamul goboleedyada. Madaxweyne Deni ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumay xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland, balse ay saameysay xayiraadda la saaray duulimaadyadii Kismaayo, ayaa waxa uu sheegay in mowqifkiisa aysan waxba iska bedeli doonin uuna ka qaybgeli doono caleemasaarka Axmed Madoobe. Isaga oo la hadlayay warbaahinta VOA-da gaar ahaan laanteeda Soomaaliga, ayaa waxa uu sheegay in awoodda dowladda aysan ahayn dukaan qof leeyahay uu sidii doono u maamusho, isla markaana lagula dagaalin ra'yigiisa siyaasadeed qof waliba oo doonaya rabitaankiisa. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay hakisay duulimaadyadii aadi lahaa magaalada Kismaayo, inkastoo ay soo saartay war qoraal ah oo ay ku beeninayso tallaabadaasi, keliyana ay sheegtay in diyaaradaha ay ku amreen in ay 24 saac ka hor soo ogeysiiyaan haddii ay u duulayaan magaalada Kismaayo, xarunta socdaalka Soomaaliya. 5 ruux ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. Wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubeysan ay 5 ruux oo shacab ah ku dileen deegaan duleedka ka ah degmada Matabaan ee gobolkaasi Hiiraan.
Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Qabno oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Matabaan, waxaana la sheegay in la rasaaseeyay dad shacab ah oo ku sugnaa goob laga hirgelinayay ceelbiyood. Goobjoogeyaal ayaa waxa ay sheegeen in maleeshiyaadkii ka dambeeyay dilalkaasi ay goobta ka baxsadeen, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in maleeshiyaadka dilka geystay ay ka tageen dhinaca degmada Matabaan. Mid ka mid ah waxgaradka degmada Matabaan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dilkaasi loo aaneynayo arrimo la xiriira aanooyin qabiil oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay u dhexeeya beelo ku wada nool deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Mas'uuliyiinta maamulka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa weli ka hadlin arrintaasi lagu dilay dadka rayidka ah, ha yeeshee wararka ayaa sheegaya in ay jiraan howlgallo lagu baadigoobayo maleeshiyaadkii dilka geystay. Matabaan ayaa gobolka Hiiraan ka tirsan, walow dadka degan ay ku heebsadaan gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanada ay maamusho Ahlusunna, waxaana sidoo kale Matabaan ku sugan ciidamo ka amar qaata Ahlusunna. Taasi ayaana keentay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la kulmay madaxweynaha Bangiga Adduunka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay madaxda Bangiga Adduunka. Xubnaha uu madaxweynaha la kulmay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Bangiga Adduunka David Malpass, waxaana si gaar ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo u siiyay warbixin ku saabsan qaabka uu bangiga ula dhacsan yahay hanaanka maaliyadeed ee Soomaaliya. Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kulanka qayb ka ahaa ayaa sheegay in kulanka ay sidoo kale ka mid ahaayeen agaasimaha guud ee IMF-ta ee hadda xilka ka sii degaya David Liptonia, sidoo kale Kristalina oo iyaduna ah agaasimaha guud ee dhowaan shaqada la wareegi doonta. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo weli ku sugan magaalada New York ayaa shir duceedyo kala duwan waxa uu la qaadan doonaa madaxda ka qaybgalaysa shirka 74aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, walow ay jiraan madax qaar oo si hordhaca uu kulamo ula qaatay, kuwaas oo wadahadallo miro dhal ah ay wada yeesheen. Saameynta ka dhalatay xayiraadda la saaray Kismaayo. Waxaa isa soo taraya saameynta aan wanaagsaneyn ee ka dhalatay xayiraadda dhinaca duulimaadyada ah ee la saaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, taas oo ay ku soo rogtay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Saameynta ugu badan ayaa waxa ay ku yeelatay dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Kismaayo oo dhinacyada ay ka saameysay ay ka mid yihiin caafimaadka, waxaana si gaar ah saameynta laga soo sheegayaa in isbitaalka magaalada Kismaayo oo ay hay-ado gargaar geyn jireen ay saameyn culus xayiraaddaasi ku yeelatay. Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahisay kulanka Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa faahfaahin guud waxa ay ka bixisay kulankii shalay magaalada New York ee dalka Mareykanka ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta, kaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha dalka Masar. Kulankaas oo lagu heshiiyey in la xaliyo khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex jira Soomaaliya iyo Kenya, sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, ayaa waxaa dad badan ay kulankaas ku fasireen waxyaabo badan sida in la isku afgartay in wadahadal lagu dhameeyo muranka badda. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in kulanka labada dhinac uu ahaa mid ay horay dowladda Kenya u dalbatay, isla markaana uu martigeliyay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Siisi, ahna guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika. Wasiir Cawad ayaa la hadlayay idaacadda VOA-da ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu sheegay in arrimaha la xiriira muranka badda aan laga wada hadli karin, isla markaana maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaari doonto. Guddi uu sheegay in lagu ballamay in la sameeyo, kuwaas oo ka shaqeyn doona daris wanaagga iyo xiriir wanaagga, isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya, balse arrimaha badda kuma jiraan, ayuu yidhi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la kulmay xogayaha guud ee Qaramada Midoobay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa wadahadallo waxa uu kula yeeshay magaalada New York ee dalka Mareykanka xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres,
labada mas-uul ayaa waxa ay magaalada New York ee dalka Mareykanka u joogaan ka qaybgalka shirka 74aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, kaas oo sidoo kale ay goobjoog ka yihiin madaxda wadamo badan oo caalamka ah. Qaramada Midoobay waxa ay kaalin mug leh ka qaadanaysaa dhismaha iyo xoojinta hay-adaha dowladda, waxaana la rajeynayaa in wada shaqeyntaas lasii dardargeliyo, ayuu yiri Antonio Guterres. Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa horey waxa uu ula kulmay xubno ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Turkiga, madaxweynaha Mareykanka, xubno ka socday Bangiga Adduunka iyo madax kale. Dagaal culus ayaa ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalkan ayaa sida la sheegay waxa uu yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland ee deegaanka Cabdalla Biroole, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo saacad ku dhow socday. Dadka deegaanka Cabdalla Biroole ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka xooggiisa uu ka dhacay gabaldhicii shalay uuna soo gaaray ilaa xalay, isla markaana ay maqlayeen dhawaqa hubka kala duwan ay isku adeegsanayaan labada dhinac, ha yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi. Al-Shabaab oo dagaalkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaas ay ku dileen 3 ka mid ah ciidamada Jubbaland, sidoo kalena ay qabsadeen saanad ciidan, walow aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada xarakada Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka Cabdalla Biroole ayaa waxa ay sheegayaan in saakay deegaankaas ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan ciidamada maamulka Jubbaland, waxaana mararka qaar la maqlayaa rasaas ay ridayaan ciidamada Jubbaland. Ugu dambeyntiina, gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa shaqadooda u fasaxay Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalk Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shaqadooda u fasaxay Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka oo hore lagu kala diray warqad ka soo baxday Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Muudey. Gudoomiyaha ayaa warqad xafiiskiisa ka soo baxday shaqadooda loogu fasaxay guddigan oo hore la sheegay in la kala diray, waxaana tani meesha ka saareysaa murankii ka taagnaa jiritaanka guddigan. Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa dood badan ka dhex dhaliyay fadhiga baarlamaanka, sidoo kale waxay muddo maalmo ah walaac geliyeen xukuumadda kadib markii ay ku eedeeyeen musuqmaasuq aad u weyn, walow markii dambe ay dowladda federaalk Soomaaliya la sheegay in ay gadaal ka riixaysay tallaabadii lagu kala diray guddigani. Daawadayaal, guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad kala socoteen channelkeena Daynila TV. Intaan warkan warka xiga ku kulmi doono annagoo isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.